isbeddelka ka dhacay dalka Ethiopia iyo tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waatan beesha caalamku u sacbatumeen ay soo dhaweeyeen haddana beesha caalamka ayaa farta ku fiiqaysay oo la leeyahay wuxuu ciidamadiisu ay geysteen xadgudub bani aadamnimo ah haddaba maxaa khaldamay oo isbeddelaas leedahay waxaanan leeyahay maadaama dadku badan yihiin haddii jawaabaha la soo gaabin karo way fiican tahay saddex arrimood ayuubaan anigu isleeyahay way sababeen anigoon innaba idinku daalinayn tixraac ku aadan sababaha keenay dagaalka iyo waxaasoo dhan waa ka dharagsantiin saddex arrimood baa keenay in adduunka gaar ahaan Maraykanku iyo kuwaas ay aad ugu qayliyaan dowladda Ethiopia kow waxa weeye xog sugan oo laga hayo xasuuqa iyo war crimes wax noqon kara information ballaaran oo dowladuhu ay hadda ka hayaan dalka Ethiopia taasi waxay keentay in Abiy iyo dowladdiisu ay saaxiibo badan waayaan taasi waa kow tan labaad waxa weeye dal saddexaad oo marka horeba reer galbeedku aanay niyad fiican u hayn in uu dagaal ka soo qayb galay kaasina waa Eritrea iyo Isaias Afwerki iyo tan saddexaad oo ah runtii maalgelintii iyo magacii la siiyey ra'iisul wasaare Abiy gaar ahaan dadka reer galbeedku ay siiyeen oo intiiba aad moodo inuu ka noqday marka laga fiiriyo dhinaca siyaasadda oo dadba carabka saartay oo ah xisbiyadii ugu tunka weynaa oo isbeddelka la keenay ra'iisul wasaare Abiyna meesha dhigay maanta in ay ka maqan yihiin kana maqnaan doonaan doorashada oo ka dhigan tahay xisbiyada OLF iyo xisbiyada Oromo dhan ayna ka qayb galeen doorashada waana shacabka hadda lagu qiyaasi karo ama deegaanka boqolkiiba 35 ilaa 40 110 milyan ee Ethiopia lagu tirinayo dadkii wakiili lahaa marka raac badan gali maayo maadaama dadku badan yihiin laakiin saddexdaa qodob iyo mid hoosta aynu ka xariiqayno oo ah TPLF-ta oo runtii saaxiibo badan ku samaysatay adduunka 30 sano ay awood hayeen intaasan ku soo joojinay aad baad u mahadsan tahay horta maxay ahayd caalamka markaad tiraahdo waa misrepresentation caalamka dadka loo qaatay inta badan beesha caalamka markay dhahaan hadii reer galbeed wadaha jireen bay ka sheekeynayaan Yurubkii iyo Maraykankii iyo wixii kale oo la halmaado Canada iyo waxyaabaha la midka Australia hadii nimanka iska Anglo-Saxon-kii iyo wixii kale oo iyagana ay Yurubka weeyaan wax la oranay laakiin waxa weeyaan waxay ku haysteen nidaamkii hore oo ka jiray Ethiopia ayay ku haysteen arrin aad iyo aad halbowle u ah oo ay u isticmaalayeen TPLF-kii Tigrayda sida ay u isticmaalaan Israel in Middle East reer galbeedna meel alla meesha kheyraad ay jirta laazim waa inay ku yeeshaan oo markasta qaaquul iyo dhibaato la beera ilaa kheyraadka gacanta u galo maadaama ay markii isbeddelku u dhacay filanwaab uu ahaa kuma intalagelin oo kuma xisaabtamin qofaan Abyssinian ahayn inuu meesha qabsan karo ninkan markuu soo qabsaday rajada laga qabay way socon weyday volte-face waxa weeyaan boqolkiiba 180 degree ayuu bedelay waxyaabihii dabiiciga ahaa oo maaragtay Ethiopia lagu maamuli jiray oo reer galbeed ay ku adeegan jireen marka oo inta orgiga ka weyn weeyaan wax aan la sheegayo dhamma waa beentan iyo way jiraan of course collateral damage baa iska jira meel kasta oo ay ciidan isku qabsadaan waa la helayaa dad maaragtay masaakiin oo dhibaato loo geystay iska dhacda laakiin waa a normal consequence of any war dagaal kasta oo dhaco ma kii gulfka waa ma kuwa hadda ka socda maxay ahayd wadamaha kale oo weliba reer galbeed ay aad ugu dhex jiraan ba ma kan Middle East iyo carabaha meel kastaba oo dagaal ka socdo ma Yemen-kan ka socda waa iska jiraan collateral damages waa jiraan laakiin meesha ay la jiraan iyagana collateral damage-ka lagama hadlayo meesha ay dan kale ka leeyihiin sida kan oo kalena waxay doonayaan inay revalidation ku sameeyaan oo ay dib u soo noqdaan oo Tigreedii wax la midkaas ay TPLF-tii wixii la mid ah meesha ay ka soo saaraan waxyaabaha yaryarka oo marka lagu maraamarsanayay weeyaan ra'iisul wasaarahana waatan uu helay Nobel Prize magac weyn oo caalamka ku lahaa bal arrintaasi adiguna waxaad ka qabto bulshada ku daawanayso u ifteemi marka ugu horeysa
daahir aad baad u mahadsantahay inaad dadkan soomaalida kala gedisan isku keento iyo dadaalkaad ku jirto saad soomaalida kol kastida la qabto adi iyo mahdiba waa soo Faisal sheegay waxaan jeclahay inaan soo koobo hadalka marka ugu horeysa dhibaatada meesha ka jirta waxa weeyaan waa internal crisis waa arrin gudaha iyo arrinta dibadda tan gudaha waxa la isku diiday in abi magaranaysa ya leadershipkiisa crisis baa haysta waxa kamid ah dhibaatadan oo dhan waxa keentay waa abi oo la garanayn dan u socdo maaragtay kolka meeshan wuxuu principle-ku ku socdo kolka dowlad maamulaysid male wax ideology male sidii Obama kale wax pragmatic oo magaranaysa xaqiiqada intuu ka duulo uu policy sameynayo lama arkayo abi uu ku fashilmay wuxuu kale u adeegsaday dadka Ethiopia saadu la socoto qowmiyadda xaarada la yiraahdo iyo Ethiopia weligeed maamuli jirtay wuxuu siiyay magaranaysa green light uu siiyay waxay doonaan inay sameeyaan wuxuu ka dhaadhiciyay sida saddexda magaalo kala gedisan Walqayd iyo Tagade iyo Raaya inay qabsadaan oo milisha dadkii uu sii daayay shalay ugu dambeysay mililig magaranaysa islaantiisii saddexaad ay tubartu ayuu leeyahay taalaan u saya isaba dhexdeeda dadkii oramada sida Jowhar oo kalena jeelku kaga yimid waa ka baxay aad baad u mahadsan tahay Dr. Ismaaciil Qodax maxaa ka socda dalka runtii anigu waxaan isleeyahay sanadkii u horreeyay waa isla wada ogeyn Abiy Ahmed siduu dadka iyo dalka dibad iyo gudaha taageerada u helay iyo siduu dadka u wajahay barnaamijkii nooca ahaa markuu ka leexday yaa hadda crisis-kan dhacayo dhanba hadduu gudaha yahay iyo hadduu bannaanka yahay ayuu bilowday questionkii u muhiimsanaa ama su-aashii u muhiimsanaad waxay ka bilaabatay nidaamkii federalismka ee qarnaa oo si kale loo dhigay oo mashruuc madhamar la yidhaha la keenay hawshaa qaraxii ka dhacay unbaa wuxuu gaaray ilaa Tigray ilaa Oromia ilaa maanta oo aynu u jeedno Ethiopia oo dowlado kale ka dhex adeeganayaan sida Eritrea iyo Sudan oo kale waxaan ku waafaqsanahay asbaabta hawshan keentay sida uu u soo dhigay walaalkay Faisal waxaan ku dari lahaa qodob kale oo muhiim ah oo reer galbeedku aad isha ugu hayaan baa jira oo ahaa in China meesha laga saaro waa ogsoontihiinoo Zenawi iyo 30 sano ee tagtay reer galbeedku waxay isku hayeen China Afrika aad u dhiibaysaa ee kada waxaa la yiraahdaa albaabka oo China ka galay Afrika waxay ahayd African Union ku yaala Addis Ababa ay ahayd Ethiopia waa wada garanaynaa airportyadeeda iyo tareenadeeda iyo shidaalkeeda iyo inuu China gacanta ku wada hayay marka taageeradiisa Abiy markii koobaad qayb weyn waxa ka ahayd inuu China meesha ka saarayo kontraktiyo badan laga noqonayo hawshii nooca ahayd ma hirgelin kambaniyada reer galbeedka waxay isha ku hayeen intaasay u badnayd bal hadda waxaan arkayay muddadan fudaynba iyadoo mashaariic hor leh China lala saxiixanayo marka intii hore walaalkay sheegay waxaan ku dari lahaa qodobka ah in barnaamijkii China in meesha laga saaro ahaana ay su'aalo badan fuuleen qodobka ugu dambeeya waxa weeye maanta xaaladda ay Ethiopia ku jirto intaan anigu hadda caqliga lahaa waa markii koobaad aan arko Ethiopia iyo dawlado kale ka dhex adeeganayaan yani hadda laba dawladood baa galbeedka iyo waqooyiga Ethiopia labaduba gobol gacanta ku hayaan sida Eritrea iyo Sudan oo kale gobolkii Oromia oo aan isleeyahay sanadii barkii hadda u dambeysay xaaladiisa oo dhanba waxay xaalad aan caadi ahayn haday tahay siyaasiyiin la xidhay iyo haday tahay maxaa la yiraahdaa diida shacab oo madani ah intaba waxaan isleeyahay xaaladda waddanku hadda uu ku jiro waa xaalad aan caadiba ahayn haddana doorasha imaanaysa marka waxaan isleeyahay maalin dhaweyd oo axsaabta la isugu yeedhay Addis Ababa oo dad caddaanana ay ka soo qayb galeen nin caddaana gacanta taagay oo su'aal cajiiba soo jeediyey oo yidhi axsaabtiina soo timida doorashada ka hadlaysa waddanka oo xaaladan ku jira say doorasho u dhici kartaa yacni su'aal wuxuuba ka bilaabayba dadka meesha fadhiya aan moodaynay in mar hore aan ka soo gudubnay yuu kow ka bilaabay wuxuu yidhi soo ma ogid in crisis-ka hadda jira markii doorashada la aado wasi lama laabmaya marka sidaa darteed waxaan leeyahay xaalad aan caadi ahayn baa hadda waddanka ka socota oo u baahan in badan la dul istaago asbaabtuna inta raggu sheegeen baan ku waafaqsanahay halkaa qodob baan ku dari lahaa aad baad u mahadsan tahay sheekh Ibrahim gudoomiye ku-xigeenka xisbiga
ka jira deegaanka Soomaalida Mawlid adiga ayaan ku siinayaa hadda isla su'aashii baan ku jiraa mawduuc kale u gudbaynaa su'aashan haday dhamato mawduuc kale u gudbaynaa weli waxaan taagannahay Ethiopia goorma ee wadada ka leexatay caalamkii u arkay inay khaldan tahay ee god ay ku socoto ama dhaliishan fara badan ay ku socoto bal adiguna aragtidaada ku soo darso bismillah aad baan idin wada salaamay asxaabta dhammaan mid haddaan ku horeeyo waxaan ku taageersanahay professor qodax professor Faisal Roble iyo Sheekh Ibrahim oo ah macnaha dhibaatooyinkii keenay dhibaatadan macnaha sababihii keenay waan ku raacsanahay waxa ugu muhiimsan meesha ka dhacay su'aashan aad hadda weydiisay ah goormay ka leexatay wadada taa Sheekh Ibrahim ka jawaabay sanadkii ugu horeeyay barnaamijyadii aynu doodihii aan ka qayb galay iyo dhinaca caalamka haddii la fiiriyo waa la soo dhoweeyey abi tallaabooyinkii uu qaaday waa loo bogay maxaabiistii uu sii daayey dhinacii mucaaradka iyo arrimahaas oo dhan wax aan Ethiopia laga filanaynin ayaa loo qabtay dhammaan si buuxda ayaa arrintaa loo taageeray waxa dhacay marka waxay ahayd markii ay bilaabatay xisbigan iyo in ay xisbi sameeyaan oo ay nidaamkii madxamad iyo waxa la sameeyo halkaas horta ay khiyaanadu ka soo bilaabatay isbedelkii waa la mintaxaabiyey niman xabashida xabsirka ayuu abdi gacanta u galay hadafkoodii marka ahaa waddanka amxaara xaq u leh amxaara ka talin dadka kale oo dhan amxaara ilaahay u sameeyey inay u adeegaan oo u khidmeeyaan hadafkii ahaa ayaa abdi gacanta loo geliyey abdi marka wuxuu sameeyey dagaalka Tigreega sabaha ugu waaweyn ee Tigreeg weerarka loogu qaaday ma ahayn in dambiilayaal laga daba tago ma ahayn in sharci la soo celiyo waayo sharcigu marka hore inuu jiro ka hor la soo celiyo Ethiopia hore sharci ugama jirin haddana wax sharci la dhaho kama jirin hadda ninkii xukunka yimaada baa ra'yigiisa iyo rabitaankiisa uu sharci ka ahaa waddanka marka in dambiilayaal la soo qabto ama sharci dib loo soo celiyo ma ahayn ujeedada dagaalka loo qaaday waxay ahayd Tigreeg oo loo arkayay awoodda keli ahayd maanta habashi hadafkeeda hor istaagi ama dhabar jebin karta oo caqabad ku noqon karta ay u arkayeen inay horta bal Tigreeg meel iska saaraan ayaa dagaalka horta loo qaaday dagaalka markii la qaaday waxaa la adeegsaday afwarqi oo ahaa gacan ku dhiigle dadkii sida baabi'iyey ayaa horta la adeegsaday oo la yiri adigu dhabarka ka dhinacana waxaa la adeegsaday maleeshiyo deegaanka xabashida ka socota oo aan dowladda u diiwaan gashanayn oo saf ballaaran iyaguna u galay dagaalka iyo macal shacabkoodii waxa marka keenay in xadgudubkan faraha badan iyo xasuuqani uu dhaco maalin walba gabdhaha shanjirka ee la kursanayo iyo dhibaatada deegaanka Tigreega ka socota ay soo baxaan waxa sababay wuxuu ahaa dadkan hadaf kala duwan wata Kenya oo qalaad iyaduna ay Tigreeg kala dhaxaysay ay u wehelisay dagaal mid waliba marka ka cadgoosa marka wixii oo dhan dagaalkii wuxuu noqday dagaal aan jecelahayn oo aan hoggaan lahayn oo aan structure lahayn oo ah saf ballaaran ayuu noqday markii caalamku hadda dhawaaqeen ee dhaheen deegaanka xasuuq baa ka socda abi wuu awoodi waayey inuu Eritreana ka saaro deegaankii maleeshiyaankii hooshida ahaa inuu ka saaro wuu awoodi waayey waayo awooddiisiiba hadda awooddu way ka ballaarantahay isaga hadda gacanta uguma jiraan waddankii dhannaa wuxuu noqday shanta fagax nin walowba hortaada u soco marka hadal uu Faarax Macalin ka dhawaajiyey oo ah in cudurdaar loo sameeyo arrimahan dhacay oo waxyaabo kale la fiiriyo aad baan anigu u dhaliilaya waxa meesha ka dhacay wax macnaha la soo dhaweeyay ma dagaalkan markii la qaaday dadkii dambiilayaasha ahaa ee TPLF hogaamin jiray dadka uu dagaalkani saameeyay haddii la badiyo 30 ama 20 kama badan meesha kumanaan masaakiina oo TPLF lafteeda ku dulmanaa oo nidaamkii ku hoos dulmanaa uu xasuuq ku dhacay marka dagaalkan markii la qaaday waxaa la yiri tuugadu badanaa maxay isu dishaabay tuugadu markay wax dhacaan badanaa way isdilaan maxay isu dilaan marka waxay isu dilaan tuugadu aynu wax soo dhacno u bay heshiis ku tahay heshiis kuma aha war waxaan aynu soo dhacnay sidee u qaybsan doonaa kuma heshiiyeen sida qodax uu sheegay
nin mabda meesha la yimid mu ahayn markii dambe waxay noqotay oo doorashada aan ku soo xidhi doono abiy ideolojiyada keliyata ee maanta miiska u taala waxa weeye inuu maalo amxaara nationalism federaalkii uu ka tegey demokraasiyadii oo iyana rukun u ahayd isbedelka uu ka tegey marka waa arrinta electionka iyo doorashada arrinta electionka iyo doorashadu waxay la rabay in ay democratizationka ama nidaamka horumarinta democracyga uu yar horumariyo waxa weeye mar haddii waxay yidhaahdaan revolutionku ama kacaanku caruurtiisuu cunaa revolutionkii abiy meesha keenay caruurtiisii horta wuu cuniyaa ugu horeeyay jawaar iyo marara oo aan ogahay ilaa 1991 Ethiopian Review aan wax ku soo wada qoraynay oo mucaarid ku ah TPLF tana waxa lagu qiyaasayaa hadda according to intelligence wax ku dhow 14,000 ilaa 17,000 oo Oromo political prisoners ma shacbi weynaha siyaasiyiin doorashada ka qayb gali lahaa inay xidhan yihiin abiy wuxuu sii daayay markuu isbedelku yimid 6,000 ilaa 8,000 inta u dhaxaysa oo waxyaabo badan isugu jira maanta haddii Oromo kaliya taa intaas ka xidhan yihiin haddii mar dadkii isaga la jaan qaadi lahaa xagga doorashada ay xidhan yihiin haddii aynu ka filayno ama aynu ka baqanayno Ibrahim iyo ragba iyo Doolaal iyo ragga goobta jooga iiga arrinta iyana sii ballaarin dooneen wixii uu u qoray Huntington Samuel Professor Huntington Madinawi uu yiri xooji la yiraahdo uu soo amaaday Museveni one dominant political party system in xisbi kaliya uu dadka ka tun weynaado madaxana kaga fadhiyo maanta PP ay saa ku socoto oo xataa qabiilaadka Soomaaliyeed ay soo dagaalamayaan maxaa la nooga reebay PP ayagoo arkay ONLF iyo Democratic Party-ga Ibrahim Deeri iyo waxaad u aragtaa muuqatana in kow doorasho xaqi aanay ka dhacayn maadaama Oromo madaxdeedii ay xidhan yihiin laba in PP dadka gacan reemis lagu samayn karo oo ay ka mid tahay gawaarida dawladda xafiisyada dawladda lacagta dawladda in PP ay ku howlgalayso xagga kuwa kale ay islaamaha ka yaboohisanayaan kumiyaan marka runtii electionka aynu ka filan karno ka dhici doona Ethiopia anigu ka dayrinaya intaas aan ku soo gaabinay aad baad u mahadsan tahay Faisal Roble aqoonyahan falanqeeya arrinta geeska Afrika gaar ahaan xaaladda Ethiopia bal maadaama uu dib u soo noqday Dr. Halxali inkastoo aan Faarax macallin aan siin lahaa maadaama uu soo noqday Dr. Halxali jigjiga haddii aad maqlayso uu ka go'ay qadkii haday aadaan ku siinaya bal doorashadan ka dhacayso dalka Ethiopia ayaanu sii guda jiraa doorashadii sida aad la socoto ma maqlaysaa horta marka hore ma maqlaysaa Dr. Halxali si fiican doorashada sida aad Faisal hadda uu ka dhawaajiyay dad badan oo ururada mucaaradka Oromadu way qaadaceen kuwa Ogaden National Liberation Front maalin dhaweed waxaan arkaya Cadaani oo afhayeenkoodii oo la hadlaya warbaahinta caalamka in tacdiyaad loo geystay oo dhibaato fara badan loo geystay haddaba haddii Abiy Ahmed yuu doonayaa inuu la tartamo especially gaar ahaan deegaanka Oromada haddii xisbiyaashii oo dhanna ka fariisteen aawe dimuqraadiyaddii oo aawe xurriyatul qowlkii aawe wanaagii la sheegayay aawe isbedelkii la sheegayay halkay ka baxeen horta de marka hore waa inaynu garanno wixii hore aynu dhegaysan jirnay oo dhan waxay ahayd istaraatiijiyad siyaasadeed oo dee dhammaanteen lagu soo xaragelinayey innaguna dhammaanteen intaynu rumaysanno halkaa aynu kala ambaqaadayno maanta doorashada Ethiopia ka dhacaysa haddii ay dhacdo kelmadaasaan ayaan isticmaali doonaaye axsaabta siyaasadeed ee maanta doonaysa inay tartanto labada xisbiya ugu weyn waa xisbiga PP iyo xisbiga Isema weeyaan axsaab kale oo siyaasadeed way jirtaa axsaabta yada regionska ka jiraana way jiraan laakiin fikirka guud ee meesha ku jiraaba markiina horeba waxa weeye waynu ognahay xaaladda gobolka Oromiya ka jirta Oromada uu doonayo waxaan anagu nirahnaa Oromada Abiy Ahmed iyo Oromadii Jawaar Maxamed iyo marka hadda Oromada doonaysa doorashada inay ka qayb gasho ee uu doonayo Abiy Ahmed inuu ku xisaabtamo waa Oromada taageerta Abiy Ahmed ee xisbigiisa BB-da waayo xisbiga BB-da dee qolo walba way ku jirtaa
sidaa daraaddeed ama oromiya region ha ahaateen ama amxaara region ha ahaato ama qolada koonfureed ha ahaato ama xataa deegaanka soomaalida ha ahaato xisbiga tartamaya ee hadda aynu eegayna waa xisbiga BB waxa la tartami doonaa waa xisbiga Isema oo isaguna ilaa gobol walba tagayo isaguna xisbi amxaara marka waxa hadda noo muuqda waa taa haddii ay doorashada Ethiopia sida ay ku sii socoto waxaynu eegi doonaa isbedelada waqtiyada soo socda iman doona iyada culayska badan ee Ethiopia saaran international community-ga iyo adduunka uu saarayo وحقنا حقوق الإنسان كوهستو حقنا دورشو كوهستو حقنا دجال كتجريجا كدعي وكوهستو حقنا سياسة يسبدل كيما كسعة إثيوبيا مرنا وتاجريان مرنا أي مالته ده بدليل سوى شدينيان مركا وقت هذا ما مقطع حويه أما دورشو هذا عضو وصيدي الربها هذا عضو سؤال شهادة سويدين وحويه ما dhacaysa marka hore haday dhacdana doorasho caadi lihi ma dhacaysa oo de mid golaheeda wata axsaabta tartamaysana waa axsaabta yar hadda oona level kale ilaa 102 qof bay maanta sharaxday ayay sharaxatay baa u sharaxan laakiin ilaa 2500 baa BB u sharaxan marka waxaad ka garan kartaa isbedelka axsaabta siyaasadeed ee maanta Ethiopia ka jirta ama iseemahaato ama BB haato ama enet haato ama labada xisbiya oo LFIO Oromo Congress haadeed دكتور دولار أضبط ما صنتي أو كل ذكرنا داونا يا قياسي دونا هذا الكادو دكتور لكن سؤال واحد تاعي حزبك BB ده وإحنا يرادين حرباتين عد الله العدة دونتان ودورة كرتان حديث سالي عن قادة نصيدة أشيكتي واحد تري أبي أحمد يجوهر لوضع حزب الشعب كلا تاجر يتواجسي جوهر محمد أولاد دورة شمر كو قاضي ملايين قفي أصاب حين أبي أحمد واتنا حفسك وكنت حابي معنا هذا واحد ودي جنتا عصيد اللي قبوا إنه نلا ترتمين ما دام الشعب في سجى يجعلين راعيان قدمنا وحو وظهري حفيزيدي أردن عاصمة الزبا يوم مالي أردنا تاس من نكون كرتا ديمقراطية تاسو معها عبورين تاسو معها حرية القول اللي قلت مليو تاسو معها شرعي أو شلي دقنكي أو TB لهيد إنه أبي دب وقصوا عليه عن برنامج أجندك لو عصب إثيوبيا سنوين ما أنا عارف تاس أدنين وحاجات وحنو ملينا يعني ما مقليو فرح معلن هذا اسكله فرح معلن هذا اسكله arrimaha dood ayaan ku jiraa isla su'aashii hadda aniga weydiinayay dolaal oo qadkii uu ka cuslaaday ma wixii waxa adkaysanaysa farax oo Ethiopia dimuqraadiyad ayaa ka jirta xuquuqul insaan ayaa ka jirta xorriyadul qowl ayaa ka jirta Ethiopia hore bay u socotaa doorashada dhici doontana waa mid xor iyo xalaal ah ما إسلام هاي ما حد قياس هذا برضه أرجع الديمقراطية اللي هذا itself was relative terminology مركي ودن بيسيو دونالد ترامب ولا ترتمي سلانتي هيلاري كلينتون هيد I think she had what 4 million 5 million votes over and above وسي إلا 10 مليون عد بكربن ده سمع marka nidaamka dimuqraasiyada sida loogu talagalay hadba dadka dominant political elite ka socoto ba sharciga hagaajisa mareykanka hadda waxay hagaajinayaan wax gerrymandering la dhaha waxay isku dayayeen nimanka republicanska in ay water down gareeyaan base ay biyo ku shubaan oo yareeyaan dadka masaakiinta oo weliba soo gumaysan jiro madowga iyo hispanics-ka waxaan kaasoo kale sifa codkooda iyaga u haysto more weighted than the population itself. marka horta awood ninka haysto marka iyada oo cid kasto awood haysato dimuqraasiyada lagu sheegana ma aha muqaddas kitaabka quraanka iyo ma aha iyo waxay ahayd injiil iyo tawraat iyo zabuur ma aha hadba waxa weeyaan cidda marka iyada awoodda haysato awoodda la wareegto ma nidaamkeeda yar hagaajisa aniga hadda kula hadlayo wadan waxaan ka imaaday dimuqraasiyadiisa la yiraahdo waa wadanka keli oo ka mid ah Afrikaanka oo 60 Allah hadda 5 sano kasta oo dhan bay doorasho dhacdo inta jeer oo laga shubtay hadda madaxweynihii annaga aan inoo soo istaagay oo Raila Odinga ah waa laga shubtay kii 17kii waa laga shubtay kii 13kii waa laga shubtay kii 007 aniga farax kula hadlaya hadda inna idinkana waad ogtihiin ilaahay baa maxay waa dhowr jeer baa laga shubtay anka laga shubtay
marka muhiimadda waxa weeyaan anaga hadda markaan iskugu imaano meeshan oo kale oo aan ka hadleyno siyaasaddeenu ka hadleyno geeska afrika ceenka muhiimadda ma aha inaan wariyaal nahay mise xuquuqul bilowaadan dad ka shaqeeya keli aan nahay oo aan qola kasta tigreeda waxay ka shaqeynaysa interestigeeda amxaarada waxay ka shaqeynaysa interestigooda ninkii abiy la odhan jiray wuxuu isku hagaajinayaa coalition uu leeyahay coalitionkan waa la soo gumaystay sanado fara badan 200 sano waa inuu adkeeyaa iyagana sidii maaragtay uu isbedel u dhici lahaa ninkii ka hor tago oo yidhaahda jawaar noqon yahay iyo faarax noqon yahay nin kale noqon yahay waa la cunaya qasab waxa weeyaan ilaa aniga hadda kula hadlay waa la cunay waana waddan dimuqraasiye haddana laakiin waa ku siinayaa faaraxo bal pointiga aan taabanno ma isleedahay doorashadan waxay noqon doontaa mid xor iyo xalaal ah af buuxa ma ku dhihi karta adigu warheede daahirow anii dhegeyso maxay ahayd ninka odayga oo dhagaha wax ku haysta oo ka hadlay hargeysa ka soo hadlayay baan hadalladiis dhegeysanay waxaa weeyaan dantaada intay ku jirtaa adiga dantii dadkii marginalizeka ahaa oo la soo baabiyey xuquuqul bilow aadan tigrey baad ka hadlaysaa 40,000 baa lagu dilay xamar gudaheeda 60,000 baa lagu dilay maxay ahayd gobolkaada adiga kuwa hadda ka hadlay maxay uga hadlay beriyayada yahuudda waa la laayay isagoo aan ku samaday yahuudda waa la laayay waxaa laga laayay waxaa lasku qabsadeen intay tahay figurka intay tahay laakiin ereyga holocaust la yiraahdo holocaust ereyga la yiraahdo uma ogolo inuu nin kale u sheegto cid kale inay sheegato ma ogolo genocide holocaust iyagaa iskale anaa la baabiyey kii lagu baabiyey kama hadlaysa dhibaatadii kaa maqneed xuquuqdaadii maqneed wax kasta oo dhan tigreeba caanka waxaas waa yara daafaanimo haddaan ku soo boodo aad baan anu hadalkayga u gaabiyey haddaan ku soo boodo I think faarax waxbuu isku khaldayaa horta abiyi dadkan meesha ku jira waa taageeri dadka meesha ku jira waa taageeri lahaayeen abiyi hadduu ku wado mabda ah in dadkii la gumaysan jiray uu kor u soo qaadayo jidkaa waa ka weecday maanta Ethiopia waxa dib loo soo dhisayaa taariikhdii Menelik waxa dib loo waxa dib loo soo dhisayaa taariikhdii amxaarada coalitionka ugu weyn laakiin let me explain why politics is the art of possible wixii suurtagal ah weeyaan 245 oo ciidan bay ku hayeen meesha la yiraahdo Mekele we are not crying for Tigray actually waxaan ka cabsanaynaa haddii Tigray taa ku sameeyay oo Soomaalida ilaa 1921 sida uu ku sheegay isweyni la soo xasuuqay kaas ma kulli ba Soomaali xasuuqay xayla silaasa hadda waan ku soo waday Faisal Ikadi ma la xasuuqay marka Tigray ma don't distort Tigray looma ooyayo faarax wala Tigray looma ooyo waxaan ka ooyayaa talo aniga muxuu igu samayn doonaa Faisal aniga dhageyso amxaarka wuxuu rabaa dantiisu ka shaqeysanahay waa run waa la ogyahay 245 oo ciidan oo sawaariikhda haystaan cid haysta aanan jirin laakiin faaraxo wadana meeshiisa la geeyay ikaadan ku dhameeyay hadii waad iga dhaxgalaysaan kama dhaxgalayo kaliya waan ku xasuusinayaa su'aasha Faisal wuxuu yiri abi wuxuu wadaa sareenta xabashida arintaas maya ana ka og dhageyso waxaan ku sheegay dhageyso markaad cudud weyn oo 245 oo haysata 400 oo taangi haysato sawaariikh maaragtay 700 kilomitir tagaysa haysato awood maaragtay u dhigmatana aadan qabin oo ku taala arsaba ku taalo ayna kugu soo rool garaynayaan nin kasta waxaad ka raadsanaysaa maxay ahayd waxaad ka raadsanaysaa amxaaradii waxaad ka raadsanaysaa Eritrea waxaad ka raadsanaysaa Soomaaliya nin kasta oo garab ka helaysa waad raadsan haddii kale waa laga takhalusaya waad gartay Soomaa marka amxaaradu anaa ku sheegay dhageyso abi amxaarada maanta shakiga ay ka qabto nin ay ka qabto malaha waxay leeyihiin wuu lagu dangaarahayaa aniga dhageysta idin sheegay horta waxa weeyaan ha ku xisaabtamin adigu UN OCHA United Nations maxay ahayd Office for Human Rights oo meel kama shaqeynaysid oo chronicle sameynaysa waa siyaasadna waa the art of possible siyaasadna waa dil iyo qaxar iyo waxna soo maray oo 200 sano soo maray marka laba you cannot have two centers of power in the same place Jawaar Maxamed hadduu isleeyahay adaa keentay xurriyadda keentay hadda maanta madaxweyne ma aha Mengistu Haile Mariam muxuu sameeyay isbedel buu sameeyay inqilaab buu sameeyay
saddexda nin afarta nin inqilaabka la samaysay kulligood wuu cunay marka dambe marka siyaasadda horta waxa weeye annaga hadda kenyaan joognaa waa waddan dimuqraasiye uhuru kenyatta markuu xukunka soo gelaya nin la dhaha ruto buu isticmaalay haddana maanta wuu ka takhalusayaa waa siyaasadda midda iyade basically that's the nature of politics marka adigu waxa waaye dantaada intay ku jirtaa ileen dad baad ka socotaa ummad baad ka socotaa wuu ku qasban yahay inuu eritrea la heshiye wuu ku qasban yahay inuu la heshiye maxay amxaare la heshiye wuu ku qasban yahay qowmiyadaha kaloo dhan inuu la heshiye oromada way liidataa markay noqoto xagga dowladnimada iyo statecraft maxaa weligood ma soo xukumin waa dad ku cusub maxay ahayd waxaan oo dhanba say doonayeen jawaar iyo tiimkiisa way dadaaleen isbeddel bay keeneen laakiin arrintaa waa lagu qabsan doonaa arrintaas waa cusuriyada madkadeysa maya way liidataa maba ka gabada soomaalidana way ninka la yidhahdo faarax macallin real politic waxa la dhaha jirtaa real politic waa brutal waa dangerous geeri iyo wax kastoo dhan bay leedahay laakiin lix jeer baa ninka naftiisa laisku dayay in la dilo maxay kula tahay intu ayar faarax waxaan u malaynayaa dhammaan akhyaarta qolkan hadda ay ku jiraan shirka ku jiraan cid tigrayda difaacayso ama qadiyadda tigrayda difaacayso kuma jiraan cid ay tirina tigraydu ama TPLF way saxsan tahay ma maqal mana sheegin muhiimaddu Abiy Ahmed wadada waxay ku yiraahdeen wuxuu ka leexday inta tigrayda iyo wadada uu ka weecan waatee wadadii Ethiopia ay ku jirtay wuxuu bilaabay bay ku yiraahdeen sameeyta xabashida uu kor u qaado Jawhar Maxamedna waa ninka kaliya maya waa strategic waa narki doonta waa strategic politics waxa weeyaan the plot and the strategy waa strategic waadna arki doontaa qolada ugu dhib badan oo isqaban doonaan isku baabi'i doonaan amxaaraday noqon doontaa laakiin ha usoo gacan banaanaado aad baad u maasantahay Dr. Ismail Qodax adiga ayaan ku siinayaa waad maqlaysay dooda ay gacanta isla galeen Faarax Faysal Roble iyo ninka la yiraahdo aqoonyahanka Faarax Macallin arrinta adigu maxaad ka leedahay doorashada Ethiopia ka dhacayso sida uu sheegay doolaal horta ma dhici doontaa hadday dhacdana ma noqon doontaa mid xor iyo xalaal ah si xaqa u dhacda aad baad umahadsan tahay daahir waxa weeyaan faarax is dhegaysano waxa weeyaan qof kastaba ma aragtay he's entitled for his opinionka iyo fact way kala gedsan yihiin kolka aniga Ethiopia ku dhashay ma aragtay haddaan runta kuu sheego maanta sidaad igu sheegayso kale ninkan maamulaya magaranaysa Kenyatta waa nin ka soo jeeda Kikuya waa ninka kalena waa ninkii kulkiidaad sheegaysay kalanjibu ka soo waa sheeko gaagaaban realityga meesha adaygu kuu sheega runta magaranaysa Ethiopia ma aragtay Ethiopia ninkan annagu adi soo feesal sheegay kama soo jeedno waxa kaga soo jeednaa waa realityga dhulka jirta realityga xaqiiqada kolka meesha taalla ma theoretical entertainment waxaan ku sameynay waa realityga inaan ka duulo then you have to formulate a policy and then a sound policy that's missed you'll have a future but yal soconaysa kolka ninkani dadkii u riyaaqay ee u tagay ilaa Washington DC so called magaranaysa nimanka maanta sorry I don't want to use that word sidii lenano kaleno hadda maaha idan aan isticmaalo kuwan Abyssinianka ma aragtay ee 200 ayaan maalin dhaweyd la shiray aan ka dhex baxo online-ka waxaan weydiiyey waxay ka hadlayeen waxa lagu laayaa Benishangul baa lagu laayaa waxa lagu laayaa dadka Tigrayga caynkaas Tigrayga dhexdeeda lagu laayaa xarun bay ka hadlayeen dadka kama hadlayaan kolka aan weydiin ku yiri war Soomaalida afartan maalin kasta iyo Soomaalida la leynayo dadkaasi maxay meesha laga saaray kolka waxaan ku sheegayaa Abyssinian mentality-ga wala waa inaad fahantiin abina wax kale kuma haysano Ethiopia laba school of thought baa jiray mid waa unitary state midna waxa weeye nation and nationality nin wala la yiraahdo Faisal baad u garanaya u dagaalami jiray wuxuu oran jiray Ethiopia ya beher saboch serbietlat Ethiopia waxa weeyaan waa meesha waa jeelka dadka nationality kala gedisan abi waxa uu dhan u bedelo walaal maanta كلنا waxa ka socda Soomaalida ma aragtay waxa lagu oranayaa waxa sameeyay ninkan magaranaysa waxa sameeyay Mustafa sameeyo oo in laftigu reer ka soo saaro war waxa waxba kama jiraan isaga sameeynaya abi baa sameeynaya imika ninkan kale ay guli jireen walaalkay magaranaysa Kenya ka soo galay ururkoodii waxay ku tilmaameen kolkay ka saarayeen listiga waxay yidhaaheen WSLF weeyaan WSLFna ma aamino
Western Somalia Liberation Front maanta waxa wiiga soo socda waxa la xusayaa wala ruux xusayaa Karamarga waa been haddana jarnaalkii ku dhintay ma garanaysaa ayuu taariikhdiisii taalow samaynaya iyaa ka shaqaynaya waxaas nimankan ma garanaysaa regionka iminka jiray kilalka oo dhan gacanta ku haysta wuxuu soo celiyey he restored the empire kolka haddaan usoo noqdo su-aashaada waxa weeye wala kolkaad election samaynaysid you have to legitimize electionku muxuu yahay you are legitimizing your power abina ma garanaysaa nimanka wuxuu xiray matalan ninkan ma garanaysaa joohar oo kale kolkuu tagay arsiya meelaha 2 milyan oo qof baa usoo baxay first time in the Ethiopian history muxuu sameeyey waana la hubaaba ku sheegaya waxaad akhridaa nin maalin dhow soo qoray wuxuu ku jiraa meeshan habashaada ku jira ajalu Eritrea conspiracy way kharijiyeen kolkaasi sida ciyaalka u dhigan trap waxay yidhahan trapka waxaa soo galaya bakale garba waxaa soo galaya way wala xidheen iyuu la tartamaya nobody qolada izaama lagu leeyahay xabashima mahaba waa guraag maad aragtay sidee ku dhici kartaa maanta inuu ma garanaysaa ururkan walaalkay uu ku tilmaamo waa WSLF ma garanaysaa uu nima dabcan xaarana ay iska soo sharaxaan jijina kolka walaal fikradanaad sheegaysa waa run saad sheegaysid maxaa u dagaalantaa tigreeb u dagaalamaa oromo u dagaalantaa laakiin waxaan u baahannahay realityga meesha jirta inaan ka hadalno innaku waxaan moodaynaa innakiibaa ishaysano isku maqan wax kale maaha waa question of power walaal abasiniyankuna kama dhaadhicsana maad aragtay ninka yimid ee southka oo peripheryga ma garanaysaa sida ma garanaysaa laga qoray buga la yidhaahdo in Ethiopia the last ma garanaysaa frontier buga egg wax kale ma waan soo gaabinayaa waxaan ku soo gaabinayaa wax election la yidhaahdo ma jirto waxa weeyaan waa just a window dressing a typical African style laakiin reality waxay ka gedisan tahay Ethiopia maanta meel kasti dagaal baa ka socda mana dhici karayso inuu qabsoomo wax electiona adiina waxaan ku sheegaya ku guulaysan maayo laakiin tan aad leedahay xabashida ayay dagaalamayaan waxba kama jiraan xabashidu ninka maanta u qora maad aragtay sorry aan soo gaabin ninka maanta u qora speechka waxaa la yidhaahaa Daniel Kubeta waa nin church ka yimid diino fikradda ma garanaysaa Pentecostal ee ma garanaysaa madamar maalintii dhow buuggii ma garanaysaa uu yidhi buugganaan qoray uu ku hadlayo muxuu yidhi madamar waa maxay madamar waa sign plaster maxay ka dhigan tahay buu yidhi ninkaasi Kubet waxay ka dhigan tahay waa macatarkii waxaa la rabaa nationkii ma garanaysaa waagii hore jiray Abyssinian style in la soo cesho orthodoxigii laga dhaadhiciyo dadka kalena ma garanaysaa slave laga dhigo